هيا ترى كير كبر صدر هذه بسيطة كذا هيا halkaan ku suganahay maanta waa degmada Guraal gaar ahaan maqaayadda Shabeel oo ah maqaayad cusub oo degmada markaasi lagu soo kordhiyay maqaayadda anaga dambeeyay ay u jeedin maanta lagu casuumay bulshada qaybaheeda kala duwan sida odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waa maqaayad markaasi aad ka heli karto cuntada noocyada kala duwan maqaayaddan waliba ma jirto maqaayad ka cunto macaan waxaana ku soo dhaweynaya shaqaale u diyaarsan soo dhaweynta macaamiisha maqaayaddan waxay ku taal ama say garabka ku haysaa dabaqa bin cali ka soo horjeedka qura hadiyaad sidoo kale xarig jarka maqaayaddan waxaa ka soo qayb galaysa hore ku sheegay odayaasha dhaqanka dhalinyarada bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan halkaan ka hadlay odayaasha dhaqanka kuwaas oo bulshada reer Guraal ugu baaqay inay maqaayadda soo camiraan maadaama ay tahay maqaayad cunto macaan ilaahay baa mahad iska leh waxaan joognaa maanta degmada Guraal oo ay ka jirto xafladda lagu xarig jarayo maqaayadda Shabeel Shabeel restaurant halkaasaan iskugu nimid waa maqaayad aad u qurux badan cuntada qiimaheeda kala duwan laga helayo shacabka iyo dadweynuhu aad iyo aad ugu farxi doonaan xafladaasaan maanta iskugu nimid xarig jarkeeda iyo xafladda maanta loo xafladeynayay aad iyo aad u mahadsantihiin kusoo dhawaada dhammaan dadka macaamiisha sharafta badan ee degmada Guraal maqaayadaas aad iyo aad u qiimaha iyo sharafta badan aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xafladdu waa xarig jarka maqaayadda Shabeel degmada Guraal dadweynaha waxaan u sheegaynaa ku soo dhawaada sharafta leh cuntadeeda kala gedisan cabitaan cunitaan mid walba ayaad ka heli doontiin insha Allah ku soo dhawaada iyada la ku casuubayaa ku soo dhawaada maantay waxaanu halkaan isugu nimid maqaayadda Shabeel restaurant ee degmada Guraal xarig jarkeedii waa maqaayad aad iyo aad u qurux badan cunno fiican leh waxa lagu sameyn karaa xafladaha aroosyada mataqaanaa bulshadeeda kala duwan diyaarinta jaamacadaha iskuulada ardayda culimada waxay leedahay meelo kala duwan iyo cunno kala duwan sidaas darteed waxaan leenahay maqaayadda tan yaa la mogaanin sidoo kale dhalinyaradii ka soo qayb gashay ayaa iyaguna warbaahinta la hadlay dhalinyaro iyo waayeel iyo odayaal intaba iyo dumarba maanta waa ka soo qayb galay xalfadda xarig jarka maqaayadda bar Shabeel restaurant Shabeel restaurant anaguna waa soo dhaweynaynaa dhalinyarada Guraal hadaan nahay aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal idinkuna ha mogaanin anaguna meesha qaasatan aan ku cayiri lahaa aad baad u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq wasalaam maanta waxaan joognaa xarig jarka maqaayadda Shabeel restaurant oo ah maqaayad hadda lagu soo kordhiyay degmada Guraal runtii dad dhalinyaraha inta fakareen ay maskaxdooda toojiyeen ay maqaayadda noo fureen bulshada reer Guraal dhalinyarada reer Guraal iyo odayaasha iyo dumarka iyo dhamaanteen waxa maqaayadda lagu soo dhaweeyaa qofkii xabad wata meel gaar ah loogu talagalay leedahay qofkii xalfad dhiga waxa dhan luuqluuqyay leedahay maqaayadda yaa la moogaanayo ka soo qayb gal wanaagsan قرون تاي مقاعد هل يماذا لنا هل يماذا مقاعد هل يماذا على الصوب ما يوحل وقليل بلف ديه بينه واحد اشتوى هلا مقاعد ضدك بالقلا ما ضدك القلا بقى لكن مقاعد انت ضد هين ولا هلا اسلين هريه يمين انت افر لا تكسع مقاعد هذا ومقاعد عصب وديغا كل soo kordhiyay soo dhawaada maqaayadda Shabeel oo maanta halkan anaga ka furay aad weyn wax cunno kala duwan chicken ha ahaato malay qalab kala duwan laga helaa chicken cuntooyin waay ku soo dhawaada maqaayad cusub oo laga furay hadda dhamaantiin waa tasaba maqaayad meel u baahantiin la kaga furay oo muhiim ah waxa waa quraacda soo jeedka bin cali dabaqa hoostiisa